السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورهي رحت وين سلام يا سلام الله عليكم. لما كمان تلقي لنا فيديو صوت دوبو لكن وحيقو قصبي وريرو أنا كيوم ملق خاتم الدهر كي دارو فان كبقول كدقو على مدينة وري وعد يدد كنا وذا فريرة على وين سماي لك لقيني سماي لك لقيني ورياره ورت الدولة لا قوستي ما شرت خاتم الله قوسديني ما jirto reer Soomaaliya waxa ku abshirtaan inaan khaatum Allah aqoonsan nimanka khudbadoodu waa in la caawiyo caawimadana xaq bay u leeyihiin la caawiyo xaq bay u leeyihiin in iskuuladii dib loogu celiyo in wax loo sameeyo in dibadij dunikaas hadda marka qaxdo dibadij baa loo sameeyaa in dibadij reerka loo sameeyo maadaama ay qaxeen waa xaq maamul lama sheegin adigu maamulka hebel maamulo baa maamulo hada waxa arteen dawlad la dhisay waxa loo soo magacaabo aragteen waxa la qayliseen nimankan waxa la aqoonsaday iyo waxa aqoonsan doono midna ma jiro xaqna uma laha sulaasacad intay la raro loona kaliya ba Soomaaliya kamid noqonayaan hayntaabka Soomaaliland bay ku jirtaa laasacad ama Soomaaliland baa xamar tagaysa oo Soomaaliya kamid noqonaysa ama soo halkaas taagnaanaysa taa horta ku abshira shaydaan kale iska naara way lagu aqoonsadeen meeshii ma yaalo taasi waa taa tan kale Soomaaliya haddii la diido anaa diidi kara anaana yeeli kara Soomaaliya qofka ku biiri kara waa aniga kuna biiri kara diidina kara 32 sanadood baan nabadgelyo ku dhisnaa anigu dawlad baan ahaa kala dambeyn baan lahaa ciidankaygan lahay wax inta shuruudihii layga rabay oo dhan baan buuxiyay hadda waxaan qarka u saaranahay without you in la aqoonsado warqadda United ka taala ee qaramada midoobay taala waa warqadii Soomaaliland markay dawladda noqotay laga qoray dawlad xamar laga qoray ma jirto warqadii ba mid kale la sii dul saara taan hadda ku doodanay warqadaasi waa taydii هذا دتك يسوي شيء عالم كيسوي شيء سنة وابتها وار أو دولة دنيا يهيد حاجة كي مادة قلنا دنيا يهيد ما يفهم إنسان دتك Soomaaliya doonayo ee Soomaalida ahaw anigu Soomaaliya haddaan doono waan oran karaa maanta way oran kartaa isaaq u oran karaa soo rar madaxda ii keena madaxweynaha ii keena madaxtooyada ka soo dhiga Hargeysa wallahi way yeelayaan because qofkay doonayaan baan ahaydee wax kasto wixii Xasan Sheekh wax kasto aan ku heli karo Soomaaliland waan sameynaya taasi waa taa mid kale jirta Soomaaliya maanta anigu waan shuruud waan ku xiri karaa haddaan soo dooni maayo Soomaaliya ku biiro anigu hal shuruud baan ku xiraya hal shuruud baan ku xiri karaa oo dadka Soomaaliland ka ba maqan shuruudan ku xiraya maxay waxaynu wada hadlaynaa oo namadii ku biiray ama iska day ku biiraya marka hal dawladda sideedoo kale idinku ay timaadaan waan maamul goboleed lahayn oo waxana maamul goboleed waxana firqadahan badan ee wala farqan saa u daadanaya oo wada farqiyo idinka lusha aad wada jartaan madaxweyne mida waa wax maamul goboleed leh wadan sidii aynu markii hore aad u ahay dawlad Soomaaliya la yiraahdo oo aan maamul goboleed lahayn adigo u Soomaaliya adigoo aan lahayn wax dadka dhiba oo faqashtan kula joogtay sanka weyn ka tagto adigoo aan ashaa wax la wadan oo aynu wadanka wada safaynay oo nabadgelyo oo dawlad yes ii kaalay bal hadda shuruudda kaliya ku xiri lahaayeen maxay sameyn lahayn wala aqoonsan la because ma haystaan time ay u qaban lahayd Soomaaliland hadda inta keenan hade okay كان ده مدحوينها عن دعين با نقريا عن دعين با رئيس الوزراء عن دعين ما با نقرا عيد كلام كمان نقول رئيس الوزراء أنا بس عيد كلام ما لها مركا وحوي باور أذوق لهذا وأرهر Soomaaliland باور الذين بس كجت بطال هذا هالصال ما لقى هذا وحيروا عن ما يعني كويدان محي تحسها محي تهيده ولا قوس هلا قوس هلا برسا بيا سكور دي الدولة دي مقع الله سمايو ما دعي صدق هي ما دعيسو فرقلين انت عارف ما هيستو لكن Soomaaliland قول بأوتها إذن كقول بإذنها غير Soomaaliland
in maanta intaa xamar ku soo dhawaaqdo waa guul run baan idiin sheegayaa guusha halkay ka tahayna fahan adigu ka soo qaado baadho dee laakiin oohinta iga daaya iyo calaacalka waa waalantiina xanuunsanaysaane naga daya calaacalka ma ogolin calaacal annagu somalilan waa somalilan kaaga doqonka ha baqayo waxba ha biqin kaaga kashlaha isla soomaaliya lagu daray no waxba laguma dari karo shalay baa mid laydinku soo afturilay saynac baa etoobiya ku soo socotaayo aad tidhahdana la saynac bay qaadanay oo mid calool buuran oo halkaa jooga madowaad madi dibi la neefeeyana yidhi maxaa meerta xildhibaan isku sheegayay waaban berigi hore waaban lahayn jiray ninkaasi hadda waaba sanifa adeer waxa laale wax waddankan ka dhacayaa ma jirto ma fahanteen shaydaanka iska naara reer somalilandow baashaala raaxaysta halkanna dowladdana si unba yeeli ama halkaasay joogi kow ama contract deg deg ahoo waxay qaadaysaa dagaal ah marka laakiin waxaad leedahay tasbax calaa khayr iskana daaya calacalka iyo waxaa